kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada taariikhda Megastar Salman Khan oo ka faalloon doono Megastar Salman Khan wuxuu dhashay 27 December sanadii 1965 magaciisa rasmiga waa Cabdirashiid Saliim Salman Khan wuxuuna ku dhashay gudaha Hindiya waana jilaa ka tirsan shirkadda lagu magacaabo Bollywoodka sidoo kale tan waa film soo saare waxa inta soo dheer heesaa inuu yahay sidoo kale wuxuu ka soo muuqdaa TV-da sidoo kale wuxuu caan ku yahay howlaha samafalka Salman Khan wuxuu fanka Hindiya ka tirsan yahay in ka badan 30 sano wuxuuna gaaray darajada ugu sarreysay atoore uu gaari lahay waana Megastar asigoo ka mid ah 8 jilaa ee dabcan darajadaas gaaray Megastar ka Salman Khan Megastar wuxuu ku gaaray in 10 sano fanka Hindi uu ka talinay sida caadiga darajada Megastar waxa gaaro atoorihii u soo gasho 10 sano oo xiriir ama waxa loo yaqaan decade inuu fanka Hindi awood ku haysto Salman Khan darajadan wuxuu gaaray 10 sano gabagabada laga soo bilaabo sanadii 2010 ilaa 2019 Salman Khan markii la fiiriyo bandhigiisa aqoonsi ahaan wuxuu ku helay 2 jeer abaalmarinta Filmfare Awards qaybaheeda kala duwan sidoo kale tan wuxuu qaatay 2 jeer bilada loo yaqaan National Film Awards laakiin dhanka jiliinka ma uusan ku qaadan wuxuu ku qaatay dhanka film soo saarista ama maalgelinta Salman Khan markii la fiiriyo shakhsiyadiisa haatan waxa lagu tilmaamaa shakhsiga ugu caansan gudaha Hindiya markii laga fiiriyo dhammaan xirfadlayaasha aflaanta ka soo muuqdaan xilligan la joogo sidoo kale tan wuxuu shacbiyad ballaaran ku leeyahay guud ahaan qaaradda Aasiya iyo dhammaan daafaha caalamka waxaana si weyn ugu xiran Hindida diaspora daafaha caalamka ku nool iyo dad kale oo Hindi ahaan oo daafaha caalamka ku nool kuwaas oo aad iyo aad u jecel superstar kan weyn Salman Khan wuxuu ka mid yahay 10 atoore ee taariikhda fanka Hindi ugu awoodda badan markii ay noqoto dhanka guulaha wuxuuna ka soo galayaa safka hore asigoo dabcan lagu tilmaamo Khanka inuu yahay kan ugu wanaagsan uguna awoodda badan ee taariikhda casriga fanka Hindi la arkay sidoo kale Salman Khan wuxuu caan ka yahay dhanka TV-yada asigoo ku caan baxay ka soo muuqashada barnaamijka loo yaqaan Big Boss waa reality show ama bandhig si xaqiiqo ah loo sameeyo oo dabcan shakhsiyaad kala duwan ku tartamaan xujooyin kala duwan Salman Khan oo barnaamijkan dhexdhexaadii ka noqdo tan iyo sanadii 2010 ayuu ka soo muuqanaya Big Boss intaas oo idin ka soo hadalna waxay ku xeen daabnaayeen waxa lagu yaqaan Salman Khan oo shaqadiisa ka dhaxlay noloshiisa gaarka markii la fiiriyo Khan waa 54 jir aan waligiis guursanin sidoo kale noloshiisana waxa haray murano kala duwan hadii ahaan lahayn xiriirada jacayl uu sameeyay iyo sidoo kale qaladaad kale oo ka dhaceen kuwaasna u tagi doonaa intaana waxay ahayd dabcan hordhacayna ka siineenay Salman Khan waa kuma daawadayaasha qiimaha badan marka koowaad aan fiirino Megastar Salman Khan bilowga noloshiisa halka asal ahaan uu ka soo jeedo Salman Khan waxa aabow film qoraaga caanka laga dambeyn jiray Saliim Khan kaasi oo qoray 70-maadkii iyo 80-maadkii aflaantii ugu caansan uguna guulaha weynaa abad Hindiya gaareen oo la xusi karo inuu dabcan qoray filmkii Sholay sidoo kalena hooyadiisa waxa lagu magacaabaa Sushila Jarak markii dambe la baxday magaca Salman Khan Salman Khan aabihi Saliim Khan waa muslim hooyadiisna waa Hindu asigana wuxuu dabcan sheegtay inuu yahay qof muslim laakiin dhawaanahan wuxuu bilaabay arimo dood iyo muran xoogan dhaliyeen kadib markii uu ka dhawaajiyay inuu dabcan muslim iyo Hindu isku yahay taasi oo dabcan taageero badan uu ku waayay Salman Khan asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa dhankaasi Afghanistan maadaama awowgiis Cabdirashiid Khan uu ka imaaday dhankaasi Afghanistan kadibna uu gudaha Hindiya sal dhigtay wuxuuna noqday awowgiis sarkaal ka tirsan ciidamada Hindiya gaar ahaan wuxuu ahay generaalkii xukumayay deegaanka ama gobolka loo yaqaan Indore State waana meesha Salman Khan uu ku dhashay sidaa darteed Salman Khan asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa Afghanistan Salman Khan hooyadiis Salma Khan ayadana waxay ka soo jeedaa reer Maharashtra ama gobolka Maharashtra ay ka soo jeedaa sidoo kale Salman Khan waxaa la dhashay 2 wiil oo lagu kala magacaabo Arbaaz Khan iyo Sohail Khan waana jilayaal fanka Hindiya ka tirsan sidoo kale waxaa la dhashay 2 gabdhood gabar lagu magacaabo Alvira Khan oo aabihiis iyo hooyadiis ay dhaleen sidoo kalena waxay u dhaxday Alvira Khan jilaaga caanka ee lagu magacaabo Atul Agnihotri oo dabcan haatan noqday film soo saare sidoo kale Salman Khan waxaa la dhalatay gabar lagu magacaabo Arbita Khan laakiin gabadhan ma ahan gabar hooyadiis aabihiis ay dhaleen laakiin waa gabar uu soo korsaday aabihiis haatan qoyskan ay ka mid tahay magaca qoyskan ayana qaadatay waxayna u dhaxdaa wiilka lagu magacaabo Ayush Sharma oo dhawaan asigana Bollywoodka ku soo biiray Salman Khan markii aan firan waxbarashadiisii asaasiga ahayd wuxuu ku qaatay deegaanka uu ka soo jeedo Indore ee gaar ahaan gobolka Madhya Pradesh kadib waxay u soo guureen qoyskiisa Mumbai maadaama aabihiis uu ahay qoraacan oo Bollywoodka laga dambeeyay sheekooyinka filimada qori jireen sidaa darteed Salman Khan waxa uu suura gashay inuu fursad u helo in dugsiga sare uu ku dhameysto iskuulka loo yaqaan Stanislas oo ku yaala deegaanka Bandara oo isla Mumbai ka tirsan sidoo kale iskuulkan waxaa la dhameeyay labadiisa walaalo ee ka yar Arbaaz Khan iyo Sohail Khan in Salman Khan aqoontiisa sare ma uusan u sii qaaday sababtoo markuu uu bilaabay dhigashada college-ka loo yaqaan St Xavier College oo Mumbai ku yaalo muddo kooban markuu wada waxbarashada uu isaga haray wuxuuna u jeestay sidii uu fanka ugu beeri lahaa atooran uu noqon lahaa hadayaasha qiimaha badan bal markaana diiradda saarna Salman Khan iyo sidii uu Bollywoodka ku soo galay iyo waxa uu qabsameen intii u dhaxaysay sanadii 1989 ilaa 93 Khan wuxuu fanka ku soo biiray sanadii 1988 wuxuuna dabcan sameeyay filimkiisii koowaad ahay Bibi Hota Aisa filimkan wuxuu ka ahay atoor caawiye oo kaliya cid xasuustan ma jirto Salman Khan filimkan inuu saameyn ku lahay mashruucan wuxuu noqday mid guul dareystay Salman Khan saameyn badan kuma lahayn laakiin filimkii lagu bartay oo Hindiya ku qabsaday dunida dhan ku barteen waa mashruuca lagu magacaabo Mani Pyar Kiya
oo soo baxay sanadii 1989 filimkan jaceylkii arrimaha familiyaara ahay waxaa director ka ahaa Suraj Bartaja. filimkan wuxuu ku dhawaaday inuu jabiyo scorekii uu dhigay filimka ugu weyn ebed Hindiga sameeyay Sholay maadaama Mana Pyar Kiya uu soo xaray ku dhawaad 14 karoor halka Sholayna uu cimri ahaantiisii keenay 15 karoor. sidaa darteed Mana Pyar Kiya wuxuu noqday intii u dhaxaysay 80 ilaa 89 tobankaas sano filimkii ugu weynaa ee Hindiga sameeyay. Salmaan Khan si degdeg wuxuu ku noqday star ama xidig ayuu ku noqday. sidoo kale bandhigii uu ka sameeyay Mana Pyar Kiya wuxuu ku kasbaday abaalmarinta Filmfare Awards ee la siiyay atooraha fanka ku cusub wuxuuna u tartamay sidoo kale atooraha ugu wanaagsan inkastoo uu heli waayay. Salmaan Khan filimkiisa Mana Pyar Kiya wuxuu ka tagay dhaxal ilaa maantadan laga sheekeeyo waxaan lagu tilmaamaa filim jaceyl ee Bollywood ka bedelay maadaama 80maadkii lagu waalnaan jiray sameynta aflaanta actionka ama dagaalka jugta loo yaqaano. kadib waxa uu xigay Salmaan Khan sanadii 1990 inuu la imaaday filimkii actionka ahay Baggy A Rebel of Love asigana wuxuu noqday mashruuc guuleysto hiid ah. sidoo kale wuxuu la imaaday 3 filim oo guulo dhexdhexaad gaareen sanadii 1991 waxayna kala ahaayeen Batarka Ball, Sanam Biwafa iyo Kurban. laakiin 91 wuxuu la imaaday filim kale oo aan la hilmaami karin waana mashruucii jaceylka saddex geesoodka ah Sajan oo uu la sameeyay Sanjay Dutt iyo sidoo kale Madhuri Dixit. filimka Sajan wuxuu noqday blockbuster weyn iyo filimkii dabcan lacagaha ugu badan soo xareeyay 91. Salmaan Khan filimkan si weyn ayaa lagu amaanay inkastoo dabcan dhanka hogaamintii saameynta Sanjay Dutt iyo Madhuri Dixit ay ka lahaayeen maadaama fanka ay kaga soo horeeyeen. Salmaan Khan wuxuu noqday xidig sal dhigtay oo dabcan aqoonsi weyn ku helay Mana Pyar Kiya sidoo kalena fanka si weyn ugu sii sal dhigtay markii uu Sajan sameeyay. waxaa xusud mudan sanadii 1992 Salmaan Khan inuu tagay halkii ugu hooseysay maadaama inta badan aflaanta xilligaas uu la imaaday gabi ahaantooda ka fashilmeen wuxuuna noqday struggling actor ama actor la daalacay sidii uu guulo ku gaari lahaa. sidoo kale tan wuxuu noqday Khan Khan mid magaciisa ku ciyaaray iyo shacbiyada uu leeyahay. ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan Salmaan Khan wuxuu ku soo rogacay filimkii actionka uu ku xarakeeyay Wanted ee Bravo Deva uu sameeyay. filimkan wuxuu noqday hit weyn oo aflaanta ka faaloodaan iyo taageerayaashiisana waxay u aqoonsadeen actionka inuu ku wanaagsan yahay oo uu dabcan uu la wareegay hogaanka action hero ama geesiga Bollywoodka actionka looga haray. Salmaan Khan wuxuu ogaaday halkuu ku fiican yahay inay tahay actionka wuxuuna ku soo noolaaday filimkii Wanted. laakiin 2009 wuxuu ku qatimay laba film ka fashilmeen waxayna kala yihiin Main or Mrs Khanna iyo London Dreams. sidaa darteed 10 sano Salmaan Khan waxaa la dhahaa waa 10 sano oo sagxadda hoose tagay wuxuuna ku soo rogaal celiyay filimkii Wanted. daawadayaasha qiimaha badan taariikhda Salmaan Khan intaas aan ku soo ilaalinayna. fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno. Assalaamu calaykum warahmatullahi